hoteelka Kambiski caasimadda waddankani Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirweyne ballaaran oo looga hadlayo argagixisada wadamada kulaala gacanka cadmeed waxaana wadamada lagu casuumay kulankani kamid ah dawladaha Djibouti, Yemen, Soomaaliya waxaana inta badan kulankani la iskula soo qaaday dhibaatooyinka kooxaha argagixisada ay ku hayaan wadamadaasi iyo waliba sida wax looga qaban karo. kulankan oo ay soo qaban qaabisay dawladda Mareykanka isla markaana ay ku casuuntay waddankani Jamhuuriyadda Djibouti wadamadaasi kala duwan ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socota wadamada Yemen, Soomaaliya iyo waliba maamulka Somaliland waxaana la iskula soo qaaday sida ay tahay in loo bari tacaalo ama wax looga qabto dhibaatooyinka argagixisada ay ku hayaan wadamada la jaarka badda cadmeed. kulankaasi ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay madax sare oo ka tirsan waddankani Jamhuuriyadda Djibouti oo isugu jira golaha xukuumadda iyo waliba qaybaha kala duwan ee taliska ciidamada waddankan. waxaa kulankaasi ka hadlay khubaro ka socota waddanka Mareykanka oo iyagu ku xeel dheer arrimaha argagixisada waxayna ka hadleen dhibaatooyinka ururka Al-Shabaab oo ku haya waddanka Soomaaliya iyagoo sidoo kalena ka hadlay dadaalada ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay kula jiraan kooxahaasi iyo sida loo baahan yahay in looga taageero ciidamadaasi la dagaalanka kooxaha argagixisada oo qaybo yar uu kaga haray Soomaaliya. waxaa sidoo kale kulankaasi looga warramay sida ay tahay in ay isku taageersadaan wadamada kulaala badda cadmeed si ay uga hortagaan isku gudubka argagixisada ee wadamada geeskan Afrika iyo waliba gacanka cadmeed. kulankani oo socon doona muddo 3 cisho ah ayaa waxaa looga doodi doonaa sida ay tahay in loo waajaho dhibaatooyinka argagixisada si looga hortago waxaana sidoo kale kulankaasi la iskula soo qaadi doonaa xiriir in ay ku yeeshaan wadamadaasi ka hortaga kooxaha argagixisada iyo burcadbadeeda intaba. kulankani ayaa waxa uu yahay kulan ahmiyad gaar ah u leh dhinaca Soomaaliya marka oo iminka xaaladaha argagixisada ugu daran ay ka jiraan marka loo eego qaybo kamid ah gobolada koonfureed oo iminka kooxaha macangaginta ee Al-Shabaab ay dhibaatooyin ku hayaan dadka shacabka halkaasi degan. Mikael Cabdirashiid Bare, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.